تعالى وبركات كسر هذا مركلة هي مقالكينا مع عشركينا ولي waxaan ku guda jirnay koorsada graphic design gaar ahaan software loo yaqaan Adobe Illustrator maanta ama cashirkan waxaan ka hadlaynaa loogada qaabka mockup loo dhaxgeliyo ayaan kalen dabcan maadaama project maalmaha aan dhisinay aan ku guda jirnay dhisadiisa ardayda aan u dhisinay ama projectkii isbitaalkiisa makala aan dhisinay dabcan loogadeen waxaan soo gelinay mockup ayaan soo dhaxgeliyay loogadii oo backgroundka blue ay lahayd waay tan midii waxa waay mar kale waxaan gelinay flag ama waxaan gelinay coffee tea ama shaah take away ayaan dhaxgelinay sidoo kale mar kale isla coffee-gii oo mid ka duwan ayaan dhaxgelinay sidoo kale mar kale waxaan dhaxgelinay loogadeeni mockup ayaan u sameynay sidoo kale kan waxa waaye koob waaye sigin laba koob waaye mid hoose iyo mid koro waaye dabcan markaan gaarno video editing waan isticmaali doono animation waxyaalo kale aan isticmaali doono projecting maadaama aan ku guda jirnay ama aan dhisinay dabcan kan waxa flag waa calan waa maadaama company-geena aan dhisinay dabcan hospitaalka waxa laga yaabaa xafiiskiisa inuu baahdo calan yar oo xafiiska la saarto sadartii markii company dhisaayo ama project dhisaayo waxa loo baahay calankan loogadana saartid ugu horeyn waxaan ka bilaabaynaa dabcan way iska fududiin waxyaalahan waxa waaye mar hadii loogadii ay ku kala reeysan tahay loogadana soo sameysay waa mahadsan tahay soo dhawow hadii aad ila socoto halkan ila soo gaarteen hambal aan ku leeyahay oo loogadii soo sameysay looga variable soo sameysay kalaradii wixii ka soo bedeshay inta joogna ugu horeyn waxaan ka bilaabaa looga mockup baan ka bilaabaa tusaalahan halkaan tagaya halka marka tago dabcan desktop kan tagaya desktop marka tago dabcan qoraalkiina ama waa taqaanayo folderkiina waxa waaye ama folderkiina mockup kan ku dhaxjina dabcan loogadan waxa waaye mar waxa la geliyay ayadoo color ayaa la geliyay mockup marna waxa waa black color ama white color ayadoo ayaa la dhaxgeliyay sidoo kale flag ama calankina waa kana koobki ama kafeegina waa kana take away mar kale waa kana mar kale waa kana inta la sameeyay wax kale ma sidoo kale bikerigan waa sameeyay dabcan dhamaantood waa sameyn doonaa tusi doona inta imaam marka horeen waxa u baahan in Illustrator ay maana dabcan maanta waxaan ku shaqeyn doonaa Photoshop aan ku shaqeyn doonaa saas darteed waxaan soo kicin doonaa Photoshop ayaan soo kicin doonaa marka Photoshop maadaama aan soo kicin rabo ama aan soo kicina inta soo kicina waxaan tagayaa waxaan tagi doonaa desktop kan tagayaa desktop marka tago download kan waxa ii yaalo mockup-ki ayaa ii yaalo tusaalahan hadii aan hoos u baxo inta waxa yaalo logo MBO mockup ayaa dabcan mockup-yadan waxa aan sameyn doono waxaan isticmaali doono adiga waxa keli kartaa muuqaal waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka link ku soo dhigi doonaa link group-kaas waxa waa kana MBO mockups ayaa la dhahaa dabcan link-kiisna waa ku soo dhigi doonaa hadaa imaatay loogada aan isticmaali doono waa kana mockup-keeda aan u isticmaali doono waa kuwana dabcan koobkii waxyaalaha kale aan isticmaali doono ayagana halkan ayaa ka arki doontaa qaybta media marka imaatid dabcan inta ku jiraano intan ayaa keli kartaa mockups badan ku jiro kala duwan waa kana koobkeeda waa kana mid kale isticmaali midna waa kana sidoo kale kuwana ku jiraan Pepsi ku jiro Coca-Cola ku jiro koob badan koob kala duwan ku jiro marka inta keli kartaa dabcan MBO waxa la mockups la ama mockups 2025 hada Telegram-ka siriya ku dhahdid oo ku soo bixi doona sidoo kale link-ki muuqaalkan aad daawanaysid description-kana oo ku soo dhigi doona aad u maasantahay marka waxa imaanayna ugu horeyn waxa imaanaya inta imaana logo MBO BSD waa double click leh si automatic waxa lagu furi doona Photoshop ayaa lagu furi doona maadaama Photoshop lagu furo kadib waxaan sameyn doonaa aan isbedel aan ku sameyn doonaa ama edit aan ku sameyn doonaa kaliya wax kale ma sameyn dooniyo waxaan sameyn doonaa edit ayaan sameyn doonaa dabcan intuu wareeganayo wax laga yaabo waqti inay qaato okay maadaama liisoo kiyay hadda waa kana waa liisoo kiyay sababtuna waxa waaye ana isticmaalay markii ugu dambeysay ayaa la isticmaalay saas darteed waa liisoo kiciyo halkan uu yaala maadaama halkan ii yaalo shaashadeena loo jeedo waxa u baahan layers kan tago layers kana soo furi doona layers marka soo furtid qayb waxa jirto maskina ama lagu sameeyay laba folder la isdhex gilay ayaa jirto meeshaas aan tagi doona isbedelka halkaas ayaan ku sameyn doonaa aniga maadaama aan rabno edit kaliya inaan sameeyno dabcan waxaan tagayaa layers kan tagayaa layers marka tago qayb waxa jirto hadii ay shan yar xiro qayb waxa jirto edit ay qoran tahay editingkaas soo furi doonta edit marka soo furtid qayb ku soo baxayso qaybtaas double click la double click marka dhaad shaashadan ku soo baxayso maadaama shaashadan ku soo baxdo shaashadan rabaa inaan wax ka bedelo marka inta marka joogtid waxa u baahan tahay markii fail inaad tagtid inaad loogada soo geliso fail aan tagayna waxa leeyahay place taban waa taqaanayo Photoshop markii la joogo waa soo bartay kadib waxa u baahan loogadeena mid background-ka blue leena soo qaato halka ina keeno halka marka keentid dabcan waxa sameyn doontaa adoo shift lahaay mouse-kaada waxa sameyn kora geed doonta inta leekaysi doontan tan waxa sameeysa geeskan leekaysiya leenahay intana sidoo kale soo jiid geeskan leekaysi sidoo kale inta waxa sameeysa soo circle mouse-ka ku soo hoos kan keen inta okay inta marka jack saar kadib
markaad jeeg saartid kadib waxaa u baahan tahay inaad control s inaad computerka ka taabatid ama keyboardka ka taabatid kadib waxaa leedahay waxaad tagi doontaa markii lagu save gareeyo boqolkiiba 99 mar save gareyntiisa markuu dhameeyo oo kuu soo saaro saan oo kale oo kuu dhameeyo waxaad tagi doontaa inta tagi doontaa looga moogabka in lagu dhaxgelay in kala fiiri doonto dabcan hadda waa lii bedelay mar kale inaad bedelo u baahanaa maxaa sameynaa hadda maadaama kan blue lii dhigay file aad tagaysaa export yaa leedahay meesha hartay ku save gareysanaysaa anaa tusaalaan si adiga kuugu tuso darteeda waa save gareyn doona intee ku save gareyn doona meel adi aa ogtahay kuugu save gareyn tusaalaan document yaa kuugu save gareynaa saas darteed save aa leeyahay inta ku save gareey maadaama ku save gareey soo fiiri marka ma liigu save gareeyey mise ma la save gareey document tag kadibna inta ka soo fiiri waatana dabcan waa lasoo save gareeyo logo moog mujida way soo socotaa oo hadday socotaa waan arki doontaa mar kale photoshopka ku laabo midka cadaanka backgroundka raba inaad soo geliyo ama midda cagaarka raba inaad soo geliyo kaliya meeshan double click ku dheh meesha lagu soo furaa sooma waxaa samaysaa control z kii hore iga saar ama kan ayadoo taalo fail tag waxaa samaysaa place le dhekedi place maadaama aad dhahday middi backgroundka cagaarka u baanay place ii soo dhaydino inta maadaama aad keentay ayadana waxaa samaysaa la ekeysi keliya waa lagu keenay sooma hadda maadaama lii keenay dhawaa siinaysaa saas loo ekeysi bis sorry control lahaya adoo lahaya muuska la qabo korgeey marka korgeey soo kale kan korgeey soo kale control zade kan waxaa samaysaa sana geeskan geey kana soo qaad geeskan geey kan waxaa samaysaa hoostan keen kadibna jeeg saar kadibna control s hadheh haylaawin taas inaad dhaadid kan isha ka xir hadda waa kana loogada waa lii sameeyey maadaama la save gareynayo weli woo socdo save gareynta socoto boqolkiiba 99 maraya markuu dhameeyo oo harjidna dhameeyo loogan tagi doona waan arki doona inuu noo bedelo in kala arki doona inta maadaama aad tagay dabcan haddii aad fiirisid inta tag horta marka hore kadib control s dheh kan waxaa samaysaa kan kore iga delete kan kore iga delete aan leeyahay kan korena waa iska delete maadaama aan deleedno kadib waxaan arki doonaa isbedel ka dhacayo ama isbedel la sameyn doono ayaan arki doonaa dabcan waa isla arki doonaa kan maadaama ku jiro delete weli okay inta fiiri marka ma lii bedel mise ma lii bedel waa lii bedel ayadana waxaa sameynaysaa save garee file tag export maya intaanan tan save gareynin ka hor waxaan soo fiirinaa mid haddii aan save gareynin waxaan tagaynaa desktopkeena tagaynaa kadib waxaan fiirinaynaa inaan save gareyno in kala fiirinayna meeshaan ku save gareyn download soo mehen waatana midaan haddii aan save gareynin halkaan ay tala downloadkii aan jooga ama documentii aan jooga midin waatana haddii aan save gareynin oo waatan halkaan ay ku taalaa dabcan waatana marka midaan haddaa rabtid adiga inta fail aad tagtid waxaa sameyn kartaa export ku sameyn kartaa dabcan qaabkaasaa loo sameeya waxaan u harsanay logadan inaa calanka soo gelin qaabkay u soo geli karaan dabcan asigana waxaa waaye mockupkan waa kuu soo diri doonaayo horena waa kugu sheegay ase bsd ana u haysta saas darteeda markuu photoshopka soo furtid waxaa u baahanta korna aadid meesha place design imaanaysa double click siin doonta double click markaas wuxuu ku geyn doonaa shaashad cusub dabcan hadda logadan midan bluegan ku jirto bluegan ka daleedaya midda cagaarta raba inaa keeno kaliya file tag kadibna place dheh kadibna waxaa samaysaa loogada midda kalarkeeda bluega ah maadaama aan soo qaadan haddii tan soo qaad inta keen inta markaa keentid shift adoo lahay waxaa sameynaysaa ilaa geeskan geey soo kale ilaa geeskan geey kadibna jeega saaraysaa control s aa leedahay waa save gareynaysaa markaa save gareyso dabcan markuu dhameeyo oo boqolkiiba boqol uu geeyo hadda savingka waa wadaa maadaama uu dhameeyo markuu dhameeyo halkan ay imaan doonta halkan kaaga dabcan calankeed waa la bedelay waxaa lagu bedelay loogada noocan oo kale ama backgroundka cagaarka ayaa lagu bedelay marka haddaad tagtid inaad save gareyso file tagaysaa export kale as bng ana save gareyn doontaa saas ayaa u sameyn doontaa okay waa ka soconaynaa midkan koobkana rabaa dabcan asig inaa bedelaa rabaa maadaama bedel rabo asigana waxaa imaanaya dabcan qaabka loo soo kiciyo hore aan kugu sheegayo hore aan kugu baray moqab aad soo gali doontaa design halkaan markaa double click si halkaan soo furo kadibna waxaa samaysa hadda loogadan ku jirto sooma loogadan ka daleedaan leenahay mid kale as rabnaa inaan soo gelino failan tagayna middan haddii aan soo geliyey place tagaysaa isla wadadii aan maraysa waxaan iska easy waa haddaa mar oo loogadii wixii aad soo samaysatid waxaan kale easy waa moqab waa keliya drag and drop waa keliya marka halka ama ayadana waxaa samaysaa shift la qabo maadaama photoshop la joogo korgeey intan waxaa samaysaa inta geeskan la ekeysiyaa leenahay sidoo kale geeskan la ekeysiyaa leenahay
sidoo kale waxaan sameynaynaa geeskan oo la ekeysiin doona kadib jeegaan saari doona kadib control s aan leeyahay intaas markaa sameeye markii la ii save garay dabcan asagana waan soo fiirin doonaayo waan arki doonaa inta imaaw asig maxaa lagu sameeyey ama inta imaaw maxaa lagu sameeyey waa lii bedelay color background kaan rabaa naftigiisa inaan iska bedelo double click ka dheh double click markaa dhahdo maadaama kan cagaar uu yahay colorkan buluugaan ka dhigana saas darteed waa isku soo baxaya marka kadib waxaa leeyahay okay aa leedahay asaa gradient leh marka hore loo sameeyey marka saas darteeda waxaa u baahan tahay inaad intaas samaysid haddaa rabtid background wide aa u samaysan kartaayo jooska adaa iska leh marka aniga colorkan haya ii samaysnaada ayaan leeyahay kadib haddii aa u baahan tahay inaad save garayso file tag kadibna export dheh saas u save garay aad aa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh do more practice